faarax iyo aamina waxay ku heshiiyeen guur balse guurka ka hor waxa kaloo ay ku heshiiyeen inay maraan xarumaha shaybaadhka si ay u hubiyaan in dhiigooda nadiif ka yahay HIV/AIDS. maanta waxay booqdeen shaybaadhkii dhakhtarkiina waxay u sheegeen inay isguursan rabaan. waxaana halkaa laga qaaday dhiigag dhakhtarkii waxa uu sheegay inay ka bad qabaan xanuunka HIV/AIDS. intaa kadib faarax iyo aamina way aqal galeen waxaana u qabsoomay aroos aad u qurux badan. muwaadin si farxaddaadu u dhammaystiranto booqo xarumaha shaybaadhka guurka ka hor oo iska hubi in dhiiggaagu nadiif ka yahay xanuunka HIV/AIDS.